gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Garadag Cabdiraxmaan Mire Axmed iyo maamulaha dugsiga sare ee degmada Garadag ayaa si wada jir ah hambalyo ugu diray ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii shahaadiga sanad dugsiyeedka kuna guuleysatay deeqda waxbarashada ah. Dhinaca kalena maamulaha dugsiga sare Salaad Jaamac Diri ayaa ka xog waramay marxaladihii kala duwanaa ee iskuulku soo aanu u sameeynay ardaydii sanad dugsiyeedkan 2017 iyo 2018 dugsiga sare ka baxday ee ku guuleysatay inay ka qayb gasho scholarship-ka dalka la siiyo. ujeedada sida uu maamuluba sheegay waxaanu marka ugu horeysa aanu u mahad alla iska leh mar labaadka waxaanu mahad celinaynaa ardaydii dadaashay gashay kaalmaha ee ku guuleysatay inay gaadho heerka maanta aynu xafladda u sameynayno. waxaanu kale oo halkan uga mahad celinaynaa waalidkii dhalay sida ku tabcay ardayda. waxaanu kale oo halkan uga mahad celinayaa macallimiintii dadaalka muujisay ee 6 subaxnimo u soo kala haysay si caruurta wax u barto. waxaan kale oo halkan mahad uga celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada oo ku saleeyay ardayda scholarship-ka helaysa aqoonta ardaygu uu kasbaday iyo nambarka uu ka keenay imtixaankii taasoo ugu dhow cadaalad. guud ahaanba wasaaradana iyana mahad baan u celaynaa. intaa markaan ka yar gudbo qolyo yar cabanayadoo tifiyada markaad aragto way badnaayeen oo lahaad cadaalad darro iyo waxbaa lagu qaybiyey scholarship-kan. haw badnaado weliba de gobolkeennan Sanaag la yahdaa. marka hore gobolka Sanaag deegaanada waa ka mid. gobolka Sanaag wuxuu helay 18 arday oo scholarship-ka uga qayb galaysa. 10 Garadag baa heshay, 6na waxa helay baran la wax ka qaatay baanu qabnaa. gobolka Sanaag de Cergaabo hadii qatay Cergaabo quran maaha uu balaanay gobolka Sanaag guul buu soo hoyay gobolka Sanaag waxaana lagu qaybiyay waa cadaalad iyo markis uu ardaygu keenay. musuqmaasuqna maaha lamana iibsan wax kale lama sameeyne markiskii ardaygu keenay ayuun baa noqotay in loo eego dabadda uu ku kasbaday inuu scholarship-ka ku helo. midda kale aan doonayo in aan yar iftiimiyo waxa weeye waxbarashada Garadag iskuulka Garadag ilaa iyo dawladihii hore ilaa maanta dee gobolka Sanaag waxbarashada iyadu haysatay ee maanta qura maaha. yibiyo cusube waa dhaqan ay Garadag u leedahay fahamka waxbarashada iyo qiimaheeda taasaa keentay in ardaydu ay dadaasho si ay u tigsato kaalmaha sare mana dhodhowa ilaa aanu gallo 10 kaalmood ee ugu horeeya dalka weli fare kama qodna. waxaan kale u sheegayaa dadweynaha la yaaban Garadag baa tobaneeshay. ardayga haddii ugu sareeyo dalka fasalada 8aad dhowr iyo 10 kun baa galmiyo muu jilaba 20 kun arday waxay tahay ardayga ugu sareeyo waa reer Garadag dalkaba. gobolka Sanaag ardayga ugu sareeyana waa reer Garadag. la yaab ma lahayd waa dhaqan ay Garadag u leedahay waxbarashadu. dadka arinta ka cabanayana waxaan u leenahay dee waxbarta walaale waxbarta oo dadaal waxaan u leenahay dadaal oo Facebook-ana ku jeedaan kuwa iyagu ma yaqaaniin buugta ku jeedaan buugta idinku Facebook isticmaal xaaladda uu ku sugan yahay xagga dhismaha intayna marka hore warbixintiisu waxa ugu muhiimsan shaad ogtihiin baa iskuulkan dee waxaa la kulmay sinaamigii baa saameeyey oo dumiyey gidaarkaas dheer maxay soo arkasaan 100 mitir iyo dhammaanba kaasadihii inta most of kaasadihii iyo office-kii iyo stoodadii wixii buug ahaayee habeenkaas waan biyihii aan ka badbaadinay mooyaane wixii kalena way qobeen. waxaa kaloo dumiyey oo dhowr jeer iyaguna kaga kacay laabka iyo librariga sida warbixintii horeba ku aragteen. laabka iyo librariga si iska hay'atoy anaga dib ugu celinay
jiingadihii iyo qoryihii iyo dee waanu ka maarmoynay waxaan si meelaha wax ku urursataan oo iyagu ba dalku nabaday iyagoo darooraya weliba oo waa ka daawanaysaan dee waxa weeyaan warbixintii horena wasaarad ahaan iyo hay-adda carena waanu u samaynay communitykana waanu iyagana u samaynay marka dee waa aragtaan marka hore dowladda xukuumadda somaliland oo hogaaminayo madaxweyne biixi muuse biixi iyo wasaaradda waxbarashada waxaanu ka codsanaynaa in tixgelin weyn dee la siiyo oo la eego si wanaagsan loo eego waxyeelada meelaha dhulka ay waxay gaadheen meel kastaba ha ahaatee annagana dee sidoo kale lagu daro priority-ga iskuullada waayo maantana iskuulka haddana furan oo wiigana noo furnaa waad aragtaan ofiskii waa dee meel cidla ah dushiisu way cadceediban hoos fadhinaa sidoo kale soodhadii iyo wixii oo dhan waxa weeyaan shalay meelaan meel allaa meel wax dhigno dee ma jirto dhib baa jirta culays weyn baa jira oo dhib ah ayaa jira wixiina iska socon maayaan wax soconayo iska soconaya maaha haddaan dee laga qayb qaadan in priority-ga la siiyo oo iskuulka dib loo dhiso oo waliba wasaaradda waxbarashadu ay tixgelin weyn oo baaqiyaan soo jeednay hore iyo kan maantaba ay ku xisaaray maxamed cabdirasaaq xirsi warbaahiyaha caalamiga Star TV